waxaan jeclaan lahaa inaan hadda ku soo dhaweeyo mikrofoonka nin magaalada Phoenix oo dhan ay maaragtay aad u jecel yihiin khaasatan laga jecel yahay maxay area 52nd ahna nin community-ga Soomaalida ku weyn mudane maxamuud jaamac saciid oo ku magac dheer shalab oo ku soo dhawow بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين ما يركب مقالة بوساسو مدحضة جالية فينيكس هويوينكا دلنيارada bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu yimi Phoenix iyo nawaaxigeeda dhamaantii waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan kadib munaasabadan caawa aan maayarka ku soo dhaweynayno waxay qayb ka tahay mataanayntii magaalada Boosaaso iyo magaalada Minneapolis marka ugu horeysa ilaah baa mahad leh oo fududeeyay oo golaaday in arintaas u qabsoonto marka labaadna halka waxaan mahad uga soo jeedinayaa waxa jira mudane Soomaaliyeed oo laga soo doorto golaha deegaanka magaalada Minneapolis 13 degmo oo magaalada Minneapolis ay ka kooban tahay Cabdi Warsame oo time iyo efforts badan iyo halgan badan u soo galay waxaan qabaa inay tahay qayb kamid ah afartiisii sano oo uu wax badan oo Soomaalida dan u qabtay haddana waxaan u maleeyaa halka inuu inoogu iman doono oo fundraising waxaan idinka codsanayaa in markaa taageero loo muujiyo maruu hadlaayay wuxuu yiri su'aal baa Soomaalida isweydiin kadhaa maxaa mudnaanta magaalada Boosaaso siiyay maxaa magaalada Boosaaso Minneapolis loola mataaneeyay sababta maxaa loola mataaneeyay way Hargeysa Kismaayo Muqdisho waa su'aal la isweydiin karo wuxuu yiri waxa jira similarity they share common value labada magaalo wax ka dhaxeeya baa jira buu yiri wuxuu yiri markii hore waxaan sameeynay survey ayaa waxa ku soo baxay magaalada Boosaaso in Minneapolis lagu mataaneeyo wuxuu yiri magaalada Boosaaso maaha caasimad waa magaalo ganacsi Minneapolisna waa magaalo ganacsi wuxuu kaloo yiri magaalada Boosaaso markii burburka Soomaaliya dhacay dhowr milyan oo qof baa u soo qaxay oo waxay ka heleen nabad iyo nolol Minneapolisna waxaad ogtihiin waxa degan aad ba waxa looga soo dhaweeyaa maxaa la yiraahdaa bulshada martida ah waa dad waxa soo degay waagii hore niman European oo Scandinavian ka yimi oo Norwegian la yiraahdo 1862 bay soo degeen inkastoo meelo badan markii hore Mareykanka degeen meeshii ugu dambeysay ay ku nagaadeen way marka dadkaas waxay caan ku yihiin martisoorka waa more hospitable marka gobolka waxa la waa progressive dadka reer bariga iyo Boosaaso waxaan qabaa inay laftoodu progressive yihiin kelmadda progressive hadaan idiin macnayo waxa weeye waa martisoorka iyo Scandinavia xadaarad iyo ilbaxnimo dheeraad ah ahaan jiray dadka gobolada ku noolna waa dad xadaarad iyo ilbaxnimo dheeraad ah leh marka waxaan leeyahay ma hadda waxa iska leh bulshada Soomaaliyeed oo ku nool Minneapolis khaasatan jaaliyada Puntland oo aan la ankiri karin oo si ilbaxnimo leh garowsatay maxaa la yiraahdaa muhiimadda ay leedahay mataanaynta labada magaalo waxa laga yaabaa in dareeno badan Soomaalidu waxay leedahay dareeno badan si badan waxa uu aragtaa Soomaalidu marka waa bulsho aad u wanaagsan dhaqan ahaan laakiin waxa jira laba cudur oo Soomaalida ku dhacay 35 sano ugu dambeeyay labada cudur waa laba cudur oo dilaa ah malaayiin Soomaaliyeed baa u dhimatay oo ciida u hoos maray kuwa badan baa hadda bukaan socda oo dhulka jiifa dad badanna waxba laga yaabaa cudurkii dumarkii caruurtii baa lagu daartayo symptomskiisa cudurkii baa ka muuqda labada cudur waxa weeye waa wada garanaysan baan u maleynaya waa qabyaalada iyo xaq jirnimada
waa laba ideology oo madaxa gala waana halis afkaar xambaarsan weeye inay wax disho oo wax gumaado qofkuna hadduu sido afkaar wax laynaysa marka ugu horeeya markuu cid laayo isaguna kama badbaadayo waa sababta Soomaali badan marka labada cudur daaway leeyihiin oo cudurrada qofka hadduu ku dhaco bacteria ama virus antibiotic badan baa laga qaataa dadku badan kuma baraarugin laakiin waa laba cudur oo dilaa ah waliba waa laba cudur fida weey haddii laba qof oo fayraska sida magaalada yimaado waxa laga yaabaa bulshaweynta oo dhan cudurkiina ku baaho gaaro marka waxyaalaha Soomaaliya halkeeyay way sanadadii ugu dambeeyay dadkuna aad badanaaba waxa laga inay yaqiinsan wax caadi isaga qaataan man aha caadi waa dhibaato sababtu waxa weeye fishanka qofka iyo aragtida ayuu ka dilaa dunidu for example tusaale kale hadisina waxay ku dhaqantaa marka qof la dooranayo wax la yiraahdo meritocracy waxa weeye bulshadeena meesha ku nool wariyaa u aqoon badan aqligiis bulshada qaybtay ugu aqli badan dadkaas talada qabta inagu ma naqaan waxaan oranaynaa ninku reerkeebu yahay waa cudur weey haddii quraan la akhriyo ninka quraanka akhriyo yahay baad leedahay iskeelka oo Soomaaliga wax ku cabiraa waxay noqonaysaa waa reer hebel iyo qabyaalad dunidana mid lagama yaqaan marka labada cudur waxay u baahan yihiin Soomaaliya laga daaweeyo daawana waleeyay daawadadu waxa weeye laba nooc mid waa diinta oo qofku hadduu diinta islaamka si fiican u haysto oo yaqiinsado alle weynaantiisa ogaado oo yaqiinsado in dhimasho jidho waxa weeye qofkii ixtiraam badan baa imanaya Allah ka cabsi baa imanaya cadaalad baa imanaysa uu baqaya qofkaasu ma xad gudbaayo cudurka inuu ka badbaado laga yaabaa mid labaad uga badbaadi kara qof waxa waa aqoon hadduu qofku aqoon dunida ka barto wuxuu la qabsanayaa oo la jaan qaadaya xawaaraha dunida ku socoto habsanka iyo gadaal dhaca Soomaaliyeed waa uu ka gudbaya marka jaaliyadaha dibadda u soo baxay waxaan idin farayaa in midnimo waa ku dheeraada laga yaabaa marka waxaan idin leeyahay waxaan ku soo gunaanadayaa in jaaliyadaha dibaddu ay Soomaalinimada iyo midnimada la taageero maayarka magaalada Boosaaso injineer Yaasiin Mire oo inagala jooga dadkii waayeelka ka ahaa maamul goboleedka Puntland isagana waxaan farayaa in hufnaan iyo cadaalad bulshada loogu adeego lana raadiyo midnimada Soomaaliyeed sababtoo Puntland waxay u taagan tahay ururanta sidii midnimo waadha Soomaali loogu heli lahaa efforts iyo time bay gelin Soomaaliya ay isku soo noqoto oo midnimo ay mid noqoto oo ay gacmaha isqabsadaan oo qabiilka iyo burburka meesha laga saaro intaas aan ku soo gunaanadaya dhamaantiina waa salaamantiin Soomaaliya ha noolaato